haweenka qaranka u shaqeeya oo shaqeeyaan madax ka ahay yaanu degmada waxaanu wada jir waxaan ku tagnay kormeer baan ku tagnay waa xilligii dalku uu beelgaarka ka baxay ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha noqday xilligaas ay ahayd waxaan sameeynaynay survey in dadka la abaabulo dareen ay yeeshaan dhalinyaro la sameeyo kooxa la sameeyo markaan degmadii kormeer ku tagnay buu wuxuu noo qaaday isagoo yar heesta hooyadu noo qaaday wax yar buu ahaa gacantaan soo qabanna waxaanu ku nini waa haliyey Soomaaliyeed oo wax gudbin kara waa nin dhalinyaro ah oo ummadda Soomaaliyeed wax tari kara meeshii xaafadii baan ka soo qaadanay koox buu ka mid noqday gabadh haweenka ka mid ah waday maanta waad arkayseen hortiina wuxuu ka sameeyay iyo sidoo jaamacadiina iyo macallimiintiina u amaanayay maalintaas waxaan arkay inuu yahay gudbiye farxiye qurxiye iyo wadani Soomaaliyeed inuu yahay waa ilmo yar buu ahaa marka waxaan idinka rabaa dhalinyaro jaamacadeena joobkay waxa la guuleyso hambalyo macallimiintii heesta loo sameeyay macallinaan hagar aqoon macallinku waa waalid weeye dugsiga markaan dhameeyay anigu ciidamada xoogga dalka Soomaaliya aan qortay militarigan ka mid noqday xidig laan ahaa markaan baylka iyo xidho dreyska cagaaran iyo baylka ee aan salaanta madaxda siinayo maalin iiga qaarsaneed ma jirto marka aan imaado aan soo baxo anoo sargaala meesha soo marayna xidiglaha beriga joogay fadhiga lagu salaami jiray qof kasta meeshiisa iska salaami jiray maanta ragaashaan leeyahay jarnaalkeeni waxeenii oo dhan cidi saawama eegto lama yaqaano waxba ma helaan waad arkaysaan sida ay yihiin hadda waa xidig